aanu gudagalo weydiinta tobnaad ee guud ahaan tartanka sidoo kalena ah weydiinta shanaad ee xaqa u leeyihiin tartamayaasha fasalka tobnaad waa maadada af Soomaaliga ama suugaanta waxay u dhacaysaa sidan yaa tiriyay guurowga uurka ka heshiiya mar labaad haddaan ku celiyo weydiintan oo af Soomaali ah waxaa la weydiinayaa tartamayaasha fasalka tobnaad waxayna u dhacaysaa sidan yaa tiriyay guurowga uurka ka heshiiya waayahay marka u dambaysa ee saddexaad tartamayaasha fasalka tobnaad dhagihiina fura su-aasha laydin weydiinayo waa af Soomaali waxay u dhacaysaa sidan yaa tiriyay guurowga uurka ka heshiiya waxaan filayaa inaad garateen kuna jawaab celin doontaan waqtiga laydin siiyo insha Allah أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا يوم مقعي سمير ونترتب معي كلاس فورم 2 سؤال جبت اسكت أبوان محمد قاعد حايو أبوان محمد قاعد حايو أبوان محمد قاعد حايو waayahay ardaydaasi ka socotay tartamayaasha fasalka tobnaad jawaabta ay bixisay sax iyo khalad aan ku soo dhaweeyo Ustaad Axmed waxay su'aashii shanaad ee la weydiinay fasalka tobnaadka sidoo kale ahayd su'aashii tobnaad ee guud ahaan tartanka waxay su'aal af Soomaaliya una dhacaysa sidatan yaa tiriyay guurowga uurka ka heshiiya jawaabta ay ka bixisay ardaydaasi ka socota fasalka tobnaadka oo ah Abwaan Maxamed Gacal Xaayo waa mid saxda ahayd bravo laba dhibood waayahay uu maasan yahay Ustaad Axmed aan u gudagalo weydiinta 11aad ee guud ahaan tartanka sidoo kalena ah weydiinta 6aad ee la weydiinayo tartamayaasha fasalka shanaad waa maadada sayniska waxay u dhacaysaa sidan imise heer ayay biyuhu maraan mar labaad haddaan ku celiyo weydiinta 6aad ee la weydiinayo tartamayaasha fasalka shanaad waa weydiinta u dambaysa ee laydin weydiin doono inta lagu guda jiro tartankan sidoo kalena waa weydiinta 11aad ee guud ahaan tartanka waxay u dhacaysaa sidan imise heer ayay maraan biyuhu kala sheeg sidoo kalena kala sheeg waayahay marka saddexaad ee u dambaysa shanaad dhagihiina fura waa saynis weydiintani waxay u dhacaysaa sidan imise heer ayay biyuhu maraan sidoo kale kala sheeg waxaan filayaa inaad garateen kuna jawaab celin doontaan waqtiga la idin siiyo insha Allah بسم الله أنيقو مقعي سهام علي كسعود ترتمياش فصل كشنات سؤال جوابتي دا اسكو داي بيها وحاي مران سده حير اوكلا اتكي هور ينف اتكي هور ينف اتكي هور ينف waayahay warcelinta ardaydaasi ka socotay tartamayaasha fasalka shanaad ay bixisay sax iyo khalad aan ku soo dhaweeyay Ustaad Axmed waxay su'aashii 11aad ee guud ahaan tartanka ahaydna su'aashii 6aad ee la weydiinay fasalka shanaadka waxay su'aal saynis una dhacaysa sidatan imise heer ayay biyuhu maraan jawaabta ay ka bixisay ardaydaasi ka socota fasalka shanaadka oo ah biyo adke biyo hor iyo biyo neef jawaabta ay ka bixisay waa mid sax ah bravo laba dhibood Al-Mustaqim Foundation waxay mas'uuliyad iska saareen in ay caawiyaan caruurta agoonta ah oo ay dabaraan waxbarashadooda buugaagtooda qalimaantooda iyo dharka iskuulka ay ku dhigan lahaayeen iyaga oo kaashanaya dadka Soomaaliyeed waxaad sanadkii bixin kartaa $360 ama 6 bilood 180 ama xitaa 3 bilood $90 oo kaliya si aad u caawiso wiil ama gabar yar oo agoon ah oo aan haysan waxbarasho iyo garab adigoo helaya xiriirka qofkaad waxbarashadiisa damaanad qaaday waxa kaliya adduun iyo aakhira ku anfacaya waa sadaqo waliba agoonta waa laga dardaarmay shaah iyo shaxaad shilimaad aad ku bixiso ha ku badbaadi waynin qof dhan mustaqbalkiisa